السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذكار الصباح والمساء. qofka waxaa fiican inuu xifdiyo ilaaliyo mar walba la yimaado. qofkii taas sameeyana rabbi caza wajal ayaa xifdinaya oo ilaalinaya wax walba, dhib walba, shaytaan walba ayuu ka ilaalinaya. waxaan tilmaamaynaa wax ka mid ah adkaar sabaax wal masaa la aqriyo. qofkan waxaa fiican mar walba inuu la yimaado ka aqriyo mobil ama kitaabka wixii uu fududba. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay aayatul kursi markuu tilmaamayo subaxdii galabtii ayaa la aqriyaa. qofkii aqriya subaxdii ilaa galabtii ayaa rabbi caza wajal wuxuu ka xifdinaya ka ilaalinaya shaytaanka. sidoo kale galabtiina qofkii la yimaado rabbi caza wajal ayaa wuxuu ka ilaalinaya shaytaan ilaa iyo subaxdeeda kale. marka waxaa fiican qofka inuu aayatul kursi mar walba aqriyo. adkaar sabaax wal masaa ay ka mid tahay subaxdii galabtii uu aqriyo sida shaytaanka rabbi caza wajal uu ka xifdiyo.